واتهاي فنانين تقار كودن درين كود ويديننا جوقلا ugu horeeya wuxuu soo yahay dareenkaaga wallahi kulli dareenkayga adigu laftaada waa garan kartaa oo laftaada waxa ku keenay adigu wariye Soomaaliya kulli dareenka Soomaalinimada ku keenay marka inta Yurub joogay oo 25 sano ah yani habeen dareenkaygu macnaha wadanimada ugu jirta iyo qiirada ugu jirta macnaha habeen ay iga macnaha dareenkaas kala lahaa ma bay jirinba sababtoo mar hadii dadkii Soomaaliyeed ee ardayda ahaa iyagoo 20 sano wax la barayay maalintii waalidkooda iyo ummadooda Soomaaliyeed ay ku intifaaci lahaayeen yani bam lagu qarxiyay yani qiiro ka xun macnaha oo wax kasta oo Soomaalidu si kasta ay sulayso mid ka xun ma jirto marka de kulli mid kaliya ma dadku dhan bay saameynaysaa dareenkaygu kiimikaaga iga hadiyay weeye arji baan ilaahay u dirsay waanu iga aqbalayaa waxaan idhi bismillaahi keliga boqorow la'aanta lama baahi beele magacyada bogaadare kugu wada bannaan iyo boqolkoo hal dhiman iyo waxaan kugu baryayaa baabaca miskiin oo kuu baahan adiga budulka iyo awaaraha laga boqo abaartiyo naga baaji eebow baasaha oraadeed naga baaji eebow baasaha oraadeed dareenkaygu waa kaa dareenkaygu بسم الله الرحمن الرحيم dareenkaygu waa dareen qiiro leh muddo dheerna waan ku soo jiray arrimahan oo horena waa soo heesnay horena waa soo gabaynay horena wax walba waan u soo marnay Soomaali 20 sano baan laan isdaaye dibka daaye dilka daaye gowraca daaye heesa badan waa ka soo qaadnay anigu hadda waxaan leeyahay allow nabad noo dhawaajiye allow dhulka noo qaboojiye allow kuwa dhabarta qabaye allow kulligoodna dhaafiye ilaahay waxaan leeyahay Soomaalida dhibka iyo dilka iyo isbaabi'inta iyo isbaraakicinta ha ka bixiyo 20 sano ay ku soo jirtay ayaan ilaahay ka baryayaa runtii aad baad ugu maasan tahay in aad maanta dareenkayga aad iga waraysato maadaama runtii ay tahay maalintii aan ugu dareen badnaa inkastoo mar kastaba dhibane uu iska yahay qofka Soomaaliga ahi ilaa iyo intii de burburka wadanka ka jiray runtii aad iyo aad waxaan uga xumahay qarniga kan hadda lagu jiro ee ummaddu ay ku dirirayso in dayax degto dadka isku leeyahay mabda diineed ama mabda qabiil ama mabda xoog sida xayawaanka duurku jirka oo kale sababtoo ah waxaan aragnaa xayawaanada ayaanu aragnaa duurku jirka inay isku diriraan hilbaha iyo ceelasha markay yimaadaan marka ilaahay dadka bilaadanka wuxuu aqliga gooniga u siiyay in ay ku kala gartaan wanaagga iyo xumaanta marka ruuxaantii waxaan aad uga xumahay waqtigan hadda lagu jiro iyagoo dadku u dhaqamayaan sidii xayawaanka duurka oo kale waxaan aaminsanahay wadanka Soomaaliya waxa ku badan dhuriyaaga baalka la yiraahdo dhuriyaaga wuxuu ku diriraa qabiil wuxuu ku diriraa hayb sida dhuriyaaga kale Soomaalidu u diriraysaa waxaan ka codsanayaa qofkii shaashada iga arkaahay in meesha uu joogay uu nabadgeliyo la fiilsa dadka kale ku siiyo
aad ma santiin runtii maanta waxa weeye maalin lagu xuseeyo qaraxii ka dhacay 3 bishii December 2009 maanta waa maalin loo barardiqayo dadkii lagu laayay ardaydii aqoon-yahanadii waxgaradkii lagu laayay maalintaas runtii aad baan uga xunnahay waxaan aad ugu tacsiideynaa dadkii uu ka geeriyooday qaraxaas isaga waxaan halkan ugu talagalnay inaan ku caawino wixii ka soo baxaa dadkii wax ku waxyeeloobay 3 bishii December 2009 sidaas ayaa fanaaniinta oo ay isugu yimaadeen maanta waa maasantiin dareenkayga haddii la weydiiyey dareenkaygu waxa weeye dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dibadda ku dhaqan ama gudaha joogan ama bannaanka joogan ama qoladii xatee qaraxa geysatay inay ka qoomamayso baan u malaynayaa oo macnaha ay dhibaatadii mataqaanaa loo geystay ardadii oo qalin jabinaysay marka dareenka ummadda Soomaaliyeed dhan ayaan la qabaa aniga walaakiin waxaan leeyahay Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay qalbigooda baa daxalaystay qalbiga daxalka laga qaado wassalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم waxaan idin sheegayaa Soomaaliyay ilaa hadda 20 sanadood baa dagaal bila macnaa oo wax cilmiga uu ku fadhiya aanu jirin uu ina haystay adduunka kama dhicin ardayda discount baa loo sameeyaa dukaamada iyo basaska markay raacayaan iyo muxuu ahaa transportiga discount baa loo sameeyaa adduunka kama dhicin meel arday la xaadarinayo magacyadoodii la gowgowraco waxaan ilaahay ka baryayaa inuu aqligiinu noqdo mid dariiqa saxda ah ilaahay ku haboon iyo dariiqiisa uu maaragtay garta marka walaalayaal please aniga waxaan ka codsanayaa inaad joojisaan dhibka oo aad dad walaalaatiin ee wala isku keen diray cadawgiin idin darin baa dabanada idin dhigay aad garataan waana mahadsan